nin iyo xaaskiisa ayaa dalxiis iyo damaashaad u aaday beerta xayawaanada. ninka xaaskiisa ayaa aragtay daanyeer iyo daanyeerad wada ciyaaraya. markaas ayay ninkii ku tiri, alla maxay labadan isjecel yihiin. haddii aan ogaa lahayn qalbiyadooda waxa inoo muuqan lahaa qiso jecel oo aad u cajiib ah. farxad ayaana dhexdooda taala. cabaar markii ay socdeen ayay haddana arkeen libaax aamusan oo fadhiya meel ka durugsan gooshiisa. waxayna mar kale xaaskiisii tiri, bal eeg lamaanahan way kala fogaadeen. qisadoodana waa mid murugo leh. saygii oo xaaskiisii u aqal celinaya ayaa ku yidhi, qaado dhagax oo ku tur goosha. xaaskii markii ay dhagaxii ku turta gooshii ayuu libaaxii soo kacay isagoo caraysan, xoogna u qaylinaya si uu u difaaco gooshiisa. xaaskiina saa'id ayay u cabsatay. mar kale ayuuna ninkii gabadhiisa u dhiibay dhagax kale si ay ugu tuurto daanyeeradii, iyada oo sugaysa in daanyeerkii xaaskiisa uu difaaco si la mid ah sida uu libaaxa u difaacay xaaskiisa. ayuuba daanyeerkii cararay si aan isaga dhagaxa ugu dhicin. ninkiina wuxuu bilaabay inuu xaaskiisa u sharaxo wixii ay aragtay. waxa uuna ku yidhi, ha ku dagmin waxa ay dadku dibadda u soo saarayaan amase muuqaalkooda duleed. waxaa jira dadka qaar dadka kale ku dhibaateeya dareenkooda been abuurka ah. waxaana jira dad qarsada dareenkooda, jaceylkoodana ku ilaashada qalbiyadooda. waxaad ogaataa in qofka aamusi kara isaga oo xanaaqsan oosan waayinna jawaabta uu celin lahaa. ninka sharaftiisa ilaashanaya haddii uusan cidna waxba weydiin macnaheedu ma ahan inuu dheragsan yahay. mid kasta oo dhoola caddaynayana ma faraxsana. waxaase jira dadka qaar oo nafahooda ka adag islamarkaana bartay sida dareenkooda duleed loogu bedelo mid ka duwan dareenka gudaha. haddii aad qisadan wax ka faa'iiday noogu reeb kommentiga.